Asalaamu calaykum. Qaar in ka mid ah waxay maqleen in dowladda Soomaaliya ama bangiga dhexe uu soo wada lacag shilin Soomaali oo dowladihii ugu dambeeyay ay isku daydayeen ama ay ku tala jireen inay soo saaraan lacag shilin Soomaaliya oo waddanka ka shaqeysa. Waxaa kale oo maalmahan cusub ama news ka saarna waxaa ka mid ah inay Puntland tiri annaguna waxaan baaritaan ugu jirnaa sida lacag gooni noo ah oo local Puntland oo ah oo currency Puntland leedahay iyaduna ay u soo saari lahayd inay ku jirto taladeeda inay ku jirto. Marka waxaan baaritaan iyo research ku sameeyey horta su-aashan oranaysa horta lacagta shilin Soomaaliga ama lacagba ma loo baahan yahay. Arrintaas ayaan maanta rabaa inaan barnaamijkeenan ama videogan kaga sheekeeyo iyadoo qoraalna insha Allah waa soo gudbin doonaa. Qodobadan barnaamijkan kusoo qaadi doono waxaa ka mid ah horta inaan marka hore dadka tuso weliba dhalinyarada aan arkinba lacagta shilin Soomaali si u ekaan jirtay waagii horeeto. Waxaan kaloo rabaa inaan kaga hadlo faa'iidada dadka lacagtan u ololeeya su-aalahay faa'iidada ka dhigaan ama dhahaan arrintan iyo arrinta sababtaas ayaa lacagta shilin Soomaaliga loogu baahan yahay. Marka sidaa daraaddeed in lacag lasoo saaro waxaa kaloo taariikhdii lacagta shilin Soomaaliga soo martay. Waxaan kaloo rabaa in kaga hadli doonaa shuruudaha lacagta fiican sida lacagta lagu soo saaro hadda lacagaha la isticmaalo khasaaraha iyo dhibka lacagaha keenaan bangiga dhexe iyo IMF-ta iyo isbarbardhigaya dhaqaalaha waddankeena iyo wadamada Afrika iyo waagii la isticmaali jiray dahabka siduu adduunka noloshu ahayd iyo anoo marka ugu dambeysa kusoo go'naanadaya siday aniga ila tahay iyo sida ila muuqato. Marka haddaan ku bilaabo mid sawirka ku saabsan lacagta sida u ekaan jirtay qofka aan horey u arkin dhalinyaro badan aan arkin baa dhici karta ama soo gaaray 1000 shilin laakiin lacagtu qaybo ka mid ah way kulligeed maahan waa intaan qayb aan soo helay internet ka soo helay tan 5 shilin oo kale ah 10 shilin saan u ekayd 20 shilin 50 shilin 100 shilin iyo 500 shilin halkii shilin saan iyo tan waa lacag la isticmaali jiray intaan gumaystuhu joogay waddanka Talyaaniga waagii la isticmaali jiray. Marka kunkan waagii dowladda sii burbureysay ayaa la soo saaray. Waxay ahayd lacag cusub note cusub oo waagii dambe la soo saaray ahayd. Tan tusaale aan kugu tusayo way dad qofkan horey u arkin lacagta. Marka waxaan gudgulayaa qodobkan kaloo ah dadka ku dooda ama u ololeynaya in lacag la soo saaro ama dowladda ha ka socdeen ama bangiga dhexe ama dad kaloo dhaha aqoon baan u leenahay lacagaha ayaga laftigoodu ku doodaan aan media in badan ka arkay. Su'aalahooda qayb intii ugu badneyd ama ugu muhiimsanayd ayaan halkan kusoo ururiyay ah horta lacagta sababta ugu baahannahay waxaa weeye in lacag jajab yeelan karta noqoto oo sanaati yeelan karta. Hadda lacagta waddanka ka jirta sanaati waa dollar, $1 iyo waa lacag adag oo macnaha lacag badan waa $1. Marka waa in la helo lacag shaaha ku bixin karno oo kabaha ku baalashan karo oo masaakiinta la siin karo. Waa qodobada badanaa dadkaas ay ku doodaan. Qodobka labaad ay ku doodaan waxaa ka mid ah dowladdu waa tii lacag leh sida dowladda sumcad iyo haybad u yeelato. Lacagtu waa haybadda iyo sumcadda ka mid ah dowladda ay leedahay ama qaran ka mid ah ama nation uu yeesho ay ku doodaan. Waxay kaloo ku doodaan ganacsiga dhaqaalaha ay kordhinaysaa oo ganacsiga waddan uu leeyahay lacagta way ka qayb qaadataa. Lacagtan hadda dollarka isticmaalana waddan naga dhaqaalo badan ayay ku base garaysan yahay marka maadaama anagu dhaqaalaheenu yar yahay uma baahnin wax u baahannahay lacag dhaqaalaheena macnaha ay isku level yihiin qodobada ka doodaan bay ka mid tahay. Waxaa kaloo ka mid ah qodobada kale ay ku doodaan lacagta haddii istaagto hadda lacagtan dollarka oo digitalka u badan haddii shirkaduhu hayaan haddii shirkadu istaagto khadkeeda wax ku dhacaan wax walbana waa istaagayaan. Nolosha dhan baa istaagaysa waana run way dhacday dhowr jeer bay dhacday. Marka taasna waa qodobada ugu waaweyn ay dhibaatada ay sheegaan macnaha looga baahan yahay in lacag la soo saaro si looga baxo arrintaas. Waxaa kaloo oo ayadana badanaa afka laga sheegin laakiin haddaad sii baartid soo helaysaa muhiimadda ugu weyn oo ayadana lacag loo soo saaro inay tahay inay budgetka ay meesha budget dowladdu ka hesho ay mushaharkeeda iyo ciidankeeda ku bixiso iyo arrimaheeda kale ay rabto. Marka intaan u gelin qodobadan ay dadkan ku doodayaan mid ayaan rabaa inaan uga jawaabi doonaa. Intaan arrinta u gelin waxaan rabaa inaan taariikhdii horta lacagta soo martay Soomaaliga inaan in yar aan dul maro. Intaan baarayay inkastoo warbixin badan aan heli karin ama adagta in la helo lacagii waagii gumeystaha ka hor shaqayn jiray waxaa ka mid ah lacag teller la dhihi jiray oo Maria Theresa teller la dhihi jiray shuruuq loo yaqaan local ahaan loo yaqaan oo Austria meelaha laga soo saaray lacag silver ku dhisan bay ahayd macdanka qalinka bay ku dhisnayd halkeeda xabo oo coinkaas lacagtaas ka mid ah coinka 25 gram oo waxaa ku jiray silver ayaa ku jirtay oo dareemi kartaa halka hadda sawirka halkan ka muuqda halkiisa xabo 25 gram oo silver ayaa ku jirtay. Lacagtaas waxaa laga isticmaali jiray bariga Afrika ama Horn of Africa wadamadan Soomaaliya iyo ka mid yihiin
ayaa waagaas laga isticmaali jiray. Gumaystihii markuu yimid markii ugu horeysay lacagii la isticmaalaya waxaa ka mid ah rubiga, Indian rupee, oo Indian rupee waxay noogu timid Ingiriiska maadaama uu India isagana maamulayay oo gumaysanayay. Waxay ku xirneen Indian rupeegaasna poundka ku xirneen. Waagi hore Indian rupeegaas la isticmaali jiray. Indian rupees oo British pound ku xirnaa, poundkaas oo hadda tusaale ahaan hadda halkan idinkaga tuso halkii pound 7.3 grams oo dahab ayaa ku jira waagaas. Hadda poundkan hadda aan shaah ku cabno, shaah maca hadda uu ka badan yahay pound, 1 gram intaas oo gram oo dahab ayaa ku jirtay. Waxa kaloo ay waagaas Ingiriisku soo saareen lacagta East African shillings la dhihi jiray oo Kenya iyo Tanzania iyo annaga ereyadan dhan laga isticmaalayay dagaalka labaad maadaama uu ku guuleystay. Ereyada dhan isku qabsaday lacagtaas ayaa uu soo saaray. East African shillings ayaa laga wada isticmaali jiray, Ingiriisku uu maamuli jiray ama soo saaray. Waxaa kaloo jirtay lacag lira la dhihi jiray oo Talyaaniga iyaguna hadda history labada gumaysta waa isku dhex daray, ma kala saarin. Lira oo iyadana Italian Somali waxaa jirtay Somaliland rupee mid la dhihi jiray oo Indian rupee ay isku xirnaayeen. Waxaa kaloo jirtay lacag kale oo Somali la dhihi jiray oo halkeeda xabo u dhigantay halka xabo East African shillings ah. Marka halkii pound 20 East African shillings ayuu lagu sarrifi jiray waagaas. Marka mid Somalida waxaa soo saartay bangiga trusteeshipka bahalkiyo oo 0.1 grams ayaa ku jiray oo dahab. Markii dowladdii dhalatay, dowladdii lixdankii la soo gaaray, lacagihii waa la isku daray. Lacagtii waxaa la qaatay macnaha shilin Soomaali ayaa loo wada bixiyay. Muddo kooban way sii socotay intii waagii hore Somaladaasi East African shillings waddanku ka sii shaqeynayay. Laakiin markii lixdankii dowladdii isku dartay oo bangiga dhexe la aasaasay, waxaa lagu sarrifi jiray halka pound oo British poundka waxay u dhigantay ama lagu sarrifi jiray 20 shilin oo Soomaali ayaa lagu sarrifi jiray waagaas. Marka lacag shilin Soomaaliga waxay ku xirnayd markii waagaya lixdankii la soo gaaray dahabka waxay ku xirnayd doolarka oo ku sii xiran dahabka. Marka doolarka waa sheeko dheer oo lacagta macnaha waagi hore gold lacagaha dhan waxay ku xirnaayeen dahab ayay ku xirnaayeen. Laakiin dagaalkii koowaad markuu dhacay ayaa Ingiriisku bilaabeen, Bank of England wuxuu bilaabay inuu lacagaha si tuuganimo ku saabsan inay lacagihii kusoo daabacaan ay dahabkii been ka sheegaan. Dagaalkii labaad markii la gaaray Bretton shir la dhihi jiray ayaa qabtay. Waxaan lagu heshiiyey in waddanka Maraykanka kaliya uu dahab ku xirnaado, lacagaha kale oo adduunka dhanna ay doolarka ku xirnaadaan. Ilaa 71 markii laga soo gaarayay Maraykanku uu si toos u cilaamiyay madaxweynihiisii uu dhahay Nixon uu dhahay maalin dambe dahabka iyo doolarkeena ma la isku xirayo. Doolarkeena wuxuu noqonayaa lacag gooni u taagan oo dowladda Maraykanka powerkeeda lagu soo saaro. Iyagoo Carabaha iyo heshiiskii intuu u tagay Carabaha shidaalkooda yiri doolarkeena ayaa isticmaali doontaan. Marka arrinta lacagta ku saabsan mar horena article ayaa ka qoray, waa sheeko dheer. Waxaan kaloo oo ayadana jirtay waagaas intii ka horeysay gumaystihii iyo intii ka dambeysay ilaa hadda ay aad u yartahay waxa la bartering oo inaad haddaad neef ariga wadatid aad dhar ku bedelan jirtay waagi horeeto. Hadda way dhacdaa haddaad qof intuu neef ariga keeno inuu bariis iyo baasta ku qaato way jirtaa. Ayagoo aan lacag aan kala gudbidsan laakiin ayagu labadii shay ay kala gudbiyaan bartering ayaa af Ingiriiska lagu dhahaa. Marka xaggan waxaan rabaa inaan in yar idinku tuso maadaama lacag taariikhdeeda kusoo jirno sidii lacagu isu bedeleen ama u qiimo dhaceen ama u burbureen lacagta shilin Soomaaliga. Garaafkan aan ka uga jeedaan. Garaafkan waxaan ka sameeyay data aan kasoo helay oo ku saabsan sarifka lacagaha shilin Soomaaliga laga soo bilaabo waagii la soo bilaabay shilinka oo dhanba ilaa waagii ugu dambeysay dowladda burbureysay. Saa u jeedaan garaafku hal mar cirkaas maray. Macnaheedu waxay tahay iyadoo lagu sarrifi jiray wax 10 shilin meelahaas ka mid ah halkii doolar lagu sarrifi jiray. Si stable u ahayd ilaa 60meeyadii 70meeyadii bilowgeedii markii la soo gaaray kor ayay bilowday inay kor u kacdo. 80kii dhamaadkiisiina wakaas cirka isku shareertay oo waxaa lagu sarrifay lacag misaal halkan u jeedaan 500 oo ayay gaartay halkii shilin in lagu sarrifo halkii doolar in lagu sarrifo 500 shilin ayay gaartay waagii dowladda sii burbureysay. Markaas ayaa waxaa soo baxday lacagta 1000 shilin iyo 80 dhamaadkii bilowgeedii waxaa soo baxay 500 shilin iyadana. Marka haddaa aragtid note badan hal warqad oo 1000 iyo 2000 iyo ku taalo 500 iyo ku taalo macnaheedu waxay ku tusinaysaa in lacagtaas qiimo dhac ku yimid. Marka hadda halkan haddana ku noqdo waxaan halkan kusoo qoray waxaan wareysanaynin Hargeysa 2015 joogay wuxuu ii sheegay in $100 uu ku sarrifi jiray 500 oo kun oo shilin
boqolka doolar oo lacagta Somaliland hadda 2004tiina ay mar gaartay sanadka hadda dhamaaday 1 milyan oo shilin inay boqolkii doolar ay gaartay marka laba jibaar ayaa qofkaas hadduu tusaale ahaan $100 haystay 2015 oo lacagta shilinka uu haystay oo 500 haystay guri u taalay waxay u goyn jirtay laba jibaar ay qiimo dhac ku yimid marka qiimo dhacaas ama lagu sameeyay lacagta iyadoo iskuma sameeyay lagu sameeyay waa sida tan Soomaaliga hadda u arkaysan hal mar cirka u gasho kaleeto waa qiimo dhac lagu sameeyay dawladuhu ku sameeyaan wadankeena kaliya maahan Kenya kamida marba 7,000 maris dhowr 10 sano ka hor maanta waxay maraysaa si la sheegay 12,000 boqolka doolar Ethiopia kaleeto dhowr sano ka hor 5 sano 6 sano ka hor 3,300 doolar sida oo lacagtooda birtaa bay maraysay boqolka doolar maanta waxay maraysaa 14,000 afar jibaar ay qiimaheedu hoos u dhacay value-geedu dhacay marka dhowr sano 5 sano 6 sano ka hor qof bir haystay oo meel uu istahay safe gareyso oo u soo tabac beelay oo intaan waqti ku soo lumiyay oo hal mar dhahay afar jibaar qiimihiisii hoos ayuu dhacay ama lacagtaadii waxba macnaha qashin bay noqotay ama wax ku dhow bay noqotay weey marka waa arkaysaa inaysan dhibaato yar ahayn iyo dhibkaas iyo xanuunkaas uu xanuun weyn noqonayo uu yahay waa dareemaysaa intaanan u gelin jawaabtii nimanka dadka u dooda lacagta qodobada aan ugu jawaabin waxaan rabaa inaan horta marka hore idin tuso ama in macnaha la wadaago horta lacagi maxay tahay lacagta ugu fiican ama lacag fiican shuruudaha laga rabo iyo waxay qabataba dad badan baa dhici karta haddaad tiraahdo waa maxay lacag hadda wadamadan hadda joogna xataa haddaad dariiqa martid tiraahdo waa maxay lacag shaqadeed qof kuu sheegi kara uu yar yahay lacagta shaqada ugu horeysa qabato waxaa la dhahaa medium of exchange inaad wax lagu kala bedesho ama walax wax lagu kala bedesho weey oo haddaad caano haystid oo rabtid inaad bariis soo gadatid qofka bariiska rabay in caanaha kaa qaata hadduusan rabinin waa inuu helo wax u dhexeeya labadiina idin dhexeeya noqdaan medium of exchange baa lahaa walax wax lagu kala bedesho weeye qodobka koowaad ay qabato lacagtu qodobka labaad ee lacagtu qabato waxa weeye inaad value ku kaysatid ama hantidaada ku kaysatid oo haddaad maanta shaqaysid $100 soo heshid ama 100 shilin soo heshid 10 sano kadib intaad gurigaaga barkintaada hoosteeda gashatid 10kaaga shilin waxay kuu goynaysaa ama 100kaaga shilin waxay kuu goynaysaa inay 10 sano kadib kuu goysa ayaa la rabaa oo lacagtii ku hayso value si hadda lacagahan soo aragno kaleeto hadda Ethiopia kamid ah 4 jibaar ay hoos u dhacday dhowr sano ka hor ay macnaha 4 jibaar ka qaalisanayd taas store value ma noqon karto bad store value way macnaha lacag fiican ma ahan way macnaheedu waxa kale oo kamid ah shuruudaha lacagta laga rabo ama shaqooyinka lacagta qabato inay unit of account noqoto oo wax lagu xisaabsado baabuurka 10,000 buu joogaa computerka $100 buu joogaa bariiska wuxuu joogaa $5 buu joogaa la dhaho iyo ganacsiga guud wuxuu ku socdo xisaabaad ku socdo inay aydoona shaqada qabatay kamid tahay shuruudaha laga rabo lacag fiican waxa kamid ah qeybahan ayaa kamid ah iyo kuwa kalaba kuwan ayaa soo qaatay durability wax la dhaho inay lacagtu waxa la dhaho hadda matalaba moos haddaad tiraahdo waxaan ka dhiganayaa lacag moosku dee wuu qurmaya marka inay noqoto lacag waxaas dhan ka madax bannaan inay noqoto durability noqoto portability waxa kamid ah inaad qaadan kartid oo $1 milyan aad dariiqa la mari kartid cidna ku dareemi karin laakiin haddaad tiraahdo lacag dee $2 milyan boqolkii doolar maraya hadda 1 milyan ka dhigtid wayna baawur intaanu baawur la soo qaaday lagu buuxiyo noqonaysa khaasan lacag ma noqonayso macna marka lacag si fudud loo qaadi karo portability noqoto divisibility waa tii hadda ka hadlaynay lacag jajab yeelan karta oo 1 senti 2 senti oo qofkii aad gurina ku gadan kartid lacag badan noqon karta shaahna ku gadan kartid jajab inay yeelan karto lacagta fiican ba ka hadlaya lacagta fiican shuruudaha kale laga rabo waxa kamid ah inay tahay lacag scarce oo si fudud lagu soo daabicin oo lagu kordhin karin haddii lacagta si fudud loo soo kordhiyo waxaa dhacaysa in qiimaheedu hoos dhaco supply hadduu bato waxaa yaraanaya value-geeda ayaa yaraanaya marka inay lacag adag tahay oo aan si macnaha aan easy lagu soo daabici karin ama lasoo daabici karin fixed ah inay tahay fungibility waxaa la dhahaa haddaan maanta $100 kaa qaato khasamaha boqolkii laftigiisa oo sidii u ekaa xaanshid aan kaa qaatay inaan kuu soo celiyo haddaan iyadoo 20 kuu keeno iyo haddaan warqad kale kuu keeno $100 inay isku mid noqdaan inay marka taasaa la fungibility waxaa kaloo ayadan laga rabo shuruudaha lacagaha kamid waxaa kamid ah lacagta fiican in si fudud dee lacagtii qofkii inta isla markii wax ka gadatay lacagtan check garayn karo oo dhihi karo okay lacagtan fake ma aha hadda lacagaha qaarkood mashiina lagu check gareeyaa way dhib badan tahay dahabka kaleeto ciladaha ku leeyahay waxa kamid ah si easy laguma farfaray macnaha laguma qiyaas macnaha dahabka waxa dhici karta qaarkood intii bir la soo qaaday dusha dahab loo ekisiiyay marka waa in la dhalaaliyo iyo hawlo badan u baahan
marka cilad kaloo dahabku leeyahayna waxaa ka mid ah inaan si fudud hadda 1 kiilo dahab haddaan haysto airportkan kalama bixi karo anoo si sharciya ku helay xataa way igu adagtay inaan kala baxo lacagta waa inay kaloo neutral noqoto neutral waxaan ka wadaa inaan qolo gooniya lagu gumaysan ama la oran karin macnaha qof adiga lagaa saari karin lacagta waa wax sida oxygen-ka aad qaadanayso kaleeto waa inay dadka u dhexayso dowladda u dhexayso dowladaha u dhexayso ganacsiga u dhexayso waa inaan macnaha haddaad madaxweynihii kasoo horjeestid ama ninka madaxda meesha ka ah inuu bangigaa iska xiri kara maaha ama lacagtii kaa cunaqabateyn kara maaha marka weliga lacagtun lacag aan dowladdu aysan joojin karin waa inay noqoto waa shuruudaha ugu fiican bay ka mid tahay lacagaha saan xaggan kusoo aragteen faa'iidada dadka u dooda ay leeyihiin lacag shil Soomaaliya lasoo saaro qodobadii soo qaateen ayaa rabaa inaan mid uga jawaabo midii koowaad oo ahayd lacagtu inay jajab yeelato taa waa isku raacsanahay aniguna waan ku raacsanahay lacagtu waa khasab inay lacag jajab yeelato laakiin waba haysanaa taas already waa haysanaa lacagta doolarka sida hadda kusoo ogaada xogta muqdisho kale 25 senti ayaa diri kartaa sida la sheegay oo $1 wax ka yar way wax jajab way marka hargeysa kaleetana si lagu yiri $100 ayaa u yar wixii kale maadaama lacag haystaan ayagu waxay ku leeyihiin waa in lacagtaas la isticmaalo gobolada qaarkood waxaa maqlay 15 senti ayaa diri kartaa marka haddii shirkaduhu iyo dowladdu isu yimaadaan taa waa sii yareyn karaa misana 10 senti 5 senti waa laga dhigi karaa taas waa la isku raacsan wayna jirtaa marka qodobkaas haddii already jiro uu shaqeynayo dee wax lagu dooda iima muuqato inay tahay midda ku saabsan sumcadda dowladda iyo qabka iyo dowladda ayay siyaadinaysaa in la helo in lacag shil Soomaaliya dowladda yeelato ama dowladda lacag yeelato gooni u ah taas waxaan u arkaa inay tahay arrin aan run ahayn maxaa yeelay saan ognahay 100 sano wixii ka horeeyay adduunka dhan wuxuu isticmaalayay dahab iyo qalin bay ahaayeen ama gold and silver bay ahaayeen wax cid gooni u lahaydna ma jirto marka arrinkaas wuxuu ku tusinayaa inaysan khasab ahayn saan ognahayna dowlad ama maamul ugu fiican la soo maray wuxuu ahaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo afartii khulafaa raashidiin midkoodna ma soo saarin lacag ay leeyihiin uma oran lacagtan waa lacag anagu qabkeena iyo ku dhisanayna baalkii lacagtii dahabka silfka la sii isticmaalay ayaa la sii isticmaalay marka dood ah dowladdu inay sumcad yeelato si lacag soo saarto ma ahan wax cusub wax way hore u jiray ma ahan midda ku saabsan dhaqaalaha iyo ganacsiga kor u qaadaysa arrintaas waxaan aaminsanahay inay tahay lacag qayb laga badbadiyey oo qolooyinkan Keynesian economicska hadda adduunka kharibay oo inflation kala daalay iyo lacagta ribada ku dhisan arrin ay dabada ka wadaan inay tahay lacagta hadii 1 milyan supply-geedu dhan 1 milyan oo dollar yahay ama 1 milyan oo note u yahay 1 milyan ayaa dhaqaalaha ku filan dhaqaalaha waxaa lagu production dadka soo saaray iyo service soo saaray ay ku dhisan yahay lacagta kaliya waxay qayb ka qaadataa inay arrintaas ay fududeyso kaliya wax kale oo lacag dhaqaalaha ka qaata ma jirto ayuu lacagta waxay loo isticmaalaa in productionka iyo serviceka soo saaraan waxay wax ku kala bedeshaan saxanta hore inuu soo sheegay shaqooyinka lacagta qabato ahayd store value iyo minimum exchange shaqadaas ay leedahay lacagtu ganacsiga qaabkaas ayay wax uga tartaa marka lacagtu muhiimadeedu waxa weeye lacag adag inay noqoto oo lacagta shuruudihii fiicnaanta ka soo sheekay yeelato taas ayaa muhiima muhiimad kale oo ganacsi ay leedahay ma jirto haddii doolarku hadda waddanka laga isticmaalo oo ay leeyihiin doolarka waddankaas uu ku base garaysan yahay koobka shaaha hadda waddamadan hadda joogno kaleeto hal boon iyo bar iyo ugu yar Soomaaliya hadda u jirta 50 cent oo laga isticmaala maxaa yeelay jajab bay leedahay haddii lacagta la sii jajabin karo taas shuruudda meeshan waa ka baxaysaa marka qodobka kale oo xiga amniga iyo controlka dowladda iyo ayay horumarinaysaa arrintaasna waxaan u malaynayaa inaysan wax weyn ka jira inaysan jirin sababta waxa weeye waxaan soo baaray ama xogteeda soo helay waxaan la dhaho AML ama KYC la dhaho anti money laundering iyo KYC effectiveness-keeda haddaa fiirisaan effectiveness waxna waxa weeye wax qabadkeeda wax ka yar 1% ayay qabtaan inta kale waa waxay noqotaa macnaha suuqa madow lagu kala gudbiyo hadda waddamadan hadda joogno xataa westernka numberkan wuu khuseynaya 1% effectiveness-kooda waa 1% marka hadduusan KYC-ga kaba shaqeynayn adduunkan aan joognaba ama yartahay intuu ka shaqeeyo macnaha wixii la rabay inay qabtaan way inay dee burcadkii iyo balaayadii iyo la diriraan dadkan lacagahan wax kala gudbiya drugskii kala gudbiya ilaa hadda way kala gudbiyaan qaab kale helayaan haddii hadda maxaa lagu soo KYC-gani waxaan ay wadaan dowladuhu ay ku soo rogaan qaab kale helaan hadda taan wuu shaqeeyaa way u shaqeeyaa marka effective-ka waxaa yareeyay waa arrintaas ma shaqeynayso way macnaheedu way yartahay
keliya waxay shaqaysaa dadka masaakiinta ayuu ku dhacaa culays ku dhaca oo hadda xawaaladaha Soomaaliya waddanka UK oo kaleeto bangiyada dhan way ka xirteen waxay dhaheen in la macaamili karno arrintankii MLK waxaa dowladda soo saartay ayaa culays ku saaray bangiyada dhan way ka xirfurteen oo hadda lacagaha xawaaladaha diyaarad ayaa lala raacaa oo kaash ahaan ayaa lagu qaadaa waxaa kaloo ka mid ah in qofkii bangiga laga xiranayo haddaad waxbaa sheegtay ama political waxbaa sheegtay bangigaagii frozen bangigu ka dhigi karaan waxay ku leeyihin maba kula macaamileen ma rabno inaan bangi ku siino siyaasiyiinta qaarkood laga xirtay baa jira ama dad hadlay oo laga xirtay baa jirta bangi ile badanaa ganacsatana u badan yihiin dowladaha laftigooda waxay ku leeyihin wadamada bay ka xirtaan hadda Russia oo kaleeto waa laga xirtay marka waxaan haddaan dib Soomaali ugu noqdo waxa kaloo oo qodob kale aan rabay inaan ku daro waxa weeye waxay ka dhigaysaa arrintan waxay keentaa in dad badan ay ku dhacdo bangi la'aan oo haddii hadda Africa oo kaleeto dad badan oo bangi haysan serviceka bangiga haysan ayaa jira sababta waxa weeye arrintan ayay dowladdu si ay isu leedahay wax fiican qabto oo dadka dalaagii balaayay iyo dhibaatadooda la dirirayna isleeyihiin culayska wax ku dhacaya dadka masaakiinta dadkii lala dirirayana weli way u shaqaynaysaa sheekadii marka arrintan ku saabsan controlkii dowladdu wax weyn ma soo kordhinayso qodobkaasna intaas ayaa uga baxaya midka khadka ku saabsan waa arrin jirta in shirkadihii qaarkood intay istaagaan oo wax walba istaagayaan taasna waxaa looga bixi karaa in monopoliga lala diriro oo shirkadaha monopoliga laga ilaaliyo ganacsiga ah oo laga dhigo in shirkado badan la keeno oo free market macnaha uu noqoto oo competition ku bato oo dhowr shirkadood haddii ay magaalada joogaan haddii mid danto mid kala shaqaynaysa marka dadkii option badan bay helayaan ganacsigiina sidii kusii soconaya hadda waddamadan joogna xataa dad badan oo cash isticmaala ma jiraan waxay u badan yihiin wax walba oo la isticmaalay digital ay yihiin bangiyo wax walba oo online marka ciladaas adduunka dhan bay ka jirtaa laakiin muhiimad waxaa looga bixi karaa waxa weeye in la badiyo optionka kamaniyaasha kaleeto oo arrintan ku jira waxaa kaloo iyadana jirta oo midda ugu muhiimsan ah oo dadka badankooda aysan kuu sheegin waxa weeye midda mushaarsiinta ku saabsan mushaarsiinta dowladdu waxay lacagaha rabtaa inay kusoo saarto maadaama ay canshuurtii qaadaysay iyo lacagta soo gelisay ay ku yar tahay waxay rabtaa lacag ay iyadu ikhtiraacday ama soo saartay inay ka dhigto mushaar oo dadkii wax ku siiso taasna wax shaqaysa maaha lacagta cirka ma soo daadato geedna kama baxdo lacagtu waa production iyo service la bixiyey ayay ku timaadaa haddii lacag la iska helayo la iska daabacayo noqonayso dowladdu maxay canshuur u qaadanaysaa ma soo daabacdo taasna horey bay u dhacday waddankeena lacagtii burburisay waa iyadii lacagtii shilin Soomaaliya waxaa waddanka saaray si loo soo daabacayay oo qofkii soo daabacayay uu arrimihiisa ugu fushanayay iyo maamulkii soo daabacay arrimahooda ugu fushanayeen ayay lacagta qiimo beeshay dadkii ayagana waxay ku noqotay culays iyo dhibaato wadamo badan ayaa sameeyey sida Zimbabwe ka mid tahay Lebanon ka mid tahay Venezuela ka mid tahay xataa Jarmalka dagaalkii koowaad ka hor kadib markii uu galay lacagtiisii halkii noot hadda meesha ay kun ka tahay teena waxay noqotay tiisi trillion ayay mar noqotay waxay noqotay dariiqa daadsan oo qashina marka taasoo kale ayay keenaysaa haddii lacagta la iska daabaco la dhaho mushaar baan ku baxsanaynaa taasay keenaysaa qodobka xiga oo inaan focus ka saaro waxaa ka mid ah sida lagu soo saaro lacagahan hadda taqaanaan sida dollarka iyo eurada iyo yenka horta waxaa loo yaqaanaa magaca ay leeyihiin waxa weeye fiat boqolkiiba 90 ka midana lacagtaas waa digital cashka waddamadan ka shaqeeya boqolkiiba 10% wax ka yar weeyo lacagta waxaa soo saara bangiga dhexe oo federaalkuna ka mid yahay federal reserve-kuna ka mid yahay Fed-kana laho Mareykanku leeyahay iyo bangiyada commercialka lacagta iyagu laftigooda lacag bay soo saaraan soo daabacaan lacagtaas bangiyadaas hadda ka shaqeynayo waxaa madax u ah bangiga dhexe Mareykanka ayaa madax u ah Fed loo yaqaano sababta madax u yahay waxa weeye waddan walba oo bangi dhexe leh waxaa khasab ku ah inuu dollar haysto si wadamada kale oo la macaamilo ila waddan alaab soo dejinaya alaab u dhoofinaya markii ay xisaab xir gaarto oo wadamada kale xisaab xiranayaan waxa lagu kala xisaab xiranayo lagu kala bedelanayo waa lacagta dollarka marka haddii lagu sheekeeyo Kenya kale iyo wadamada kale lacag Saudi Arabia lacag loo kala isticmaashaa waxaas waa inta dhexdooda laakiin markii dowladda kale mucaamilayaan dowlad u mucaamilayso dollar ayaa loo isticmaala dollarkaas ay bangiyadooda ku haystaan bangiga dhexe lacagta inta badan waxaa soo saara bangiyada ganacsiga loo leeyahay oo hadda 1 milyan oo pound hadda Barclays ka dalbado waxaa la fiirinayaa historygii inaan qof fiican ahay markii la soo ogaado 1 milyan bangigaas asaga daabacaya waa lacag cusub uu khadka ku soo daray oo circulation ku soo daray way wuxuu kaloo lacag lagu saaray quantitative easing maxaa la dhaho hadda 2008 kii kale markii dhacday bangiga dhexe lacag bay daabaceen
waxaa kaloo qaabab kale lagu soo lacag lagu daawaco waxaa kamid ah maaliyadda wasaaradda maaliyadda oo kaleeto oo bonds waxa la yidhahdo gada oo iyo bangiga dhexe. Marka lacagahan fiatka ah waagii hore lacagta marka waagii hore waxay ku dhisnaan jirtay poundka iyo eurada iyo dahab inta dowlad walba dahab intay haysato ayay soo daabici jirtay. Laakiin saan horey hadda u sheegay 1991 wixii ugu dambeysay ayay dowladda Mareykanka waxay tiri mar dambe lacagteena dahab kuma xirayno lacagteena annaga daabacayna waa iska daabacayna baawarkeena ayaan ku daabacayna. Lacagtaas ayaa marka waxaa la dhahaa fiat ayaa la dhahaa lacagahan oo dhan la isku dhahaa waxay ku dhisan yihiin oo kusoo baxaan hadda qaababkan oo dhan waxaa la dhahaa interest ama riba ama ribx oo riba ah. Ribadaas oo ah dambi aad u weyn hadda aan sheegi doono. Marka lacagahan oo dhan waxay ku dhisan yihiin ribo bay kusoo baxaan. Maadaama dahabkii hadda laga baxay oo aysan jirin dahab lagu soo saaro marka haddii lacag la soo saarayo waa inay dowladdu lacag soo saarayso waa inay qaabka interest ku dhisan ay soo marto oo ah dambi oo dambiga macnaha ribada ah oo dambi aad u weyn ah. Marka dhibaatada keento lacagahan fiatka ay keeneen boqolkii sano ugu dambeysay ama 71 wixii ka dambeeyay waxay keeneen in horta ay noqoto ribo. Ribadaas oo ah dambi aad u weyn oo ka weyn sinadaba. Waa dambi aad u weyn dadkeena aad uma fahansana ama dadka muslimiinta waxaan moodaa inaysan ribada ku baraarugsaneyn dhibka iyo mushkiladda ay leedahay. Waxa adduunka holcinaya waa lacagtii oo ribo ku dhisnaatay oo adduunka dhan hadda holcinaysa aniga saan aaminsanahay. Waxay kaloo keentaa lacagtan la iska daabacayo fiatka oo interest ku dhisan inflation waxa la yiraahdo. Dowladdii lacagta soo galaysa kuma filna lacagta ka baxaysa ayaa badan markaas sicir bararkii si loo daabacayay lacagtaada bangiga kugu taalay boqolkaagii dhowr sano haddii lacagtaada kugu taagtay inflation iyo sicir barar ayaa cunay. Markaas haddana waxaa yimid dagaalo aan joogsanayn maxaa yeelay dagaaladan hadda wax lagu gado lacag lagu gado waa lacag la daabacay dowladda dhexe bangiga dhexe daabacay si dagaalada ugu galaan. Waagii horeeto markii dagaal la galayay waxaa la qaadi jiray canshuurta dagaalka iyo dadka laga soo ururin jiray. Arrintaasna way adag tahay in dadka la fahansiiyo ama dagaal ay galaan la dhaho. Hadda dagaalada socda qaarkood dadka mujtamaca intiisa badan inay isku raacsaneen baa dhici karta. Laakiin hadda dagaal waxaa fududeeyay oo inay waqti badan qaataan keenay in lacagtii dowladdii ay awood u yeelato iyadoo dahabna aysan haysan inay iska daabacdo. Cadaalad darradii ayaa cirkaa gashay oo qofka lacagta u dhow oo ama ninka lacagta u dhow lacagta soo saaray ayaa wuxuu noqday bilyaneer noqday. Dadka masaakiinta ahayna waxay noqdeen faqri ayay sii noqdeen. Dhaqaale xumo baahsan boom iyo bust wax la dhaho ayaa dhacay oo haddeertaan jira dhowrkii sano 2008 dibka la soo maray waa la socdaa iyo ka horba. Waxaa kaloo jira stresskii iyo walwalkii oo dadka kusii badanaya oo dadkan wada shaqeynaya oo aad arkaysaan is leeyihiin nolol fiican ay ku nool yihiin stress iyo dhib ayay ku nool yihiin qaarkoodna waa isdaldalaan ama way isdilaan in badan isdilashana way jirtaa qoys burburka ayaa batay guurkii ayaa yaraaday carruurta ayaa yaraatay hadda caddaanka dhan carruur badan maba dhalaan qaarkood carruur ma lahan waxay ku leeyihiin maba awoodna labadii qof hooyadii aabihiiba shaqay aadayaan subaxii habeenkii iyadoo la daanaya la imaanaya caafimaad darradii ayaa badatay kun waxyaalood oo intaan oo waxyaalood dhib ayaa lacagtan ay si toos ah iyo si dadbanba ay u fududeysay ama u keentay aniga saan aaminsanahay. Lacagahan waxaa maamula oo soo saara waa bangiga dhexe ama sharci u soo dejiya haddii bangi commercial lacag soo saaraya xataa waxaa sharciga soo dejiya bangiga dhexe. Marka bangiga dhexe laba erey ama laba quotation ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo warkiisa oo dhanba. Labada quotation dhaqaaliyahana kan ugu horeeya waa Thomas Sowell baa la dhahaa waa nin dhaqaaliyahana waa nin hadda 90 jir hadda waa nool yahay oo intaana buug oo dhaqaalaha qoray aad iyo aad muctaraf u ah oo aad looga dambeeyay dhaqaalaha oo la weydiiyey bangigan dhexe oo adiga ka soo horjeeday maxaa ku bedeli lahayd haddii bangiga dhexe la burburiyo. Bangiga dhexe laga hadlayo waxa weeye kan Mareykanka asoo Mareykanka jooga marka wuxuu yiri haddii qofku uu kansar ku dhaco kansarkii lugta iska gooyo kale iska goysid maxaa ku bedeli lahayd. Marka meeshu ka joogo waa dareemaysaa wuxuu ku tilmaamaya bangigan inuu kansar yahay kansarkii uu iska gooyo kale. Marka qof hadduu kansar hayo kansarkii iska baabi'iyo alxamdulillah waa inuu dhaho weeye. Waxaa kaloo asagana soo qaatay hadal uu yiri nin la yiraahdo Ron Powell oo ah in madaxweynaha Mareykanka mar u tartamay buug caanan qoran laho The End of Fed baa la dhahaa waxa la burburiyo Fedka ayuu qoray buug la dhaho wuxuu leeyahay bangiga dhexe shaqadu qabto waxa weeye counterfeiting wax la dhaho oo ah inuu lacagtii xado. Waan runtii haddaad si fiirisid waxa weeye si indirect ayaa lacagtaadii loo xadaya oo tusaale ahaan hadda Ethiopia ka sheekeeyo kaleeto qofkii haystay $100 lacag u dhigato bira 4 jibaar ayaa qiimaheedu hoos u dhacay. 4 jibaar waa lacag la xaday counterfeit oo dowladdu samaysay way. Maadaama bangiga dhexe ka hadlay waxa aydan rabaa inaan ka hadlo IMF iyo World Bankiga. Horta World Bank iyo IMF waa laba hay'adood oo waxay ku dhisan yihiin waxa weeye inay deyn bixiyaan deyntaas oo ribo ku dhisan.
ribadana hadda waa sheegnay waa dembi aad iyo aad u weyn. Waxaa kaloo la isku raacsan yahay ama dadka in badan isku raacsan yihiin inay gumeysi yihiin, qaab gumeysi ay ku shaqeeyaan. Maalinta ugu horeysa oo deyn bixiyaan ayaa maalintaas waxay dowladaha soo koraya waxay ku bilaabaan inay maamulaan oo ay amar bixiyaan oo ay dhahaan kan ma samayn kartin kan ha samee. Marka kow lacagtoodii oo horta ribo ku dhisan oo dembi kabaa'ir ah iyo gumeysi. Iyo midda labaad oo ah waxaan aaminsanahay dowladda Soomaaliya markii lacagtay qaadatay IMF iyo World Bank ka qaadatay maalintaas ayaa burburkii Soomaaliya ugu horeysayba ay keentay aniga saan aaminsanahay. Marka waxaan isku dayay inaan soo ogaado ama soo baaray imise horta dowladdii lacagtay qaadatay wax badan ayaa maqashin dowladda Soomaaliya lacag ayaa laga cafiyey oo laga cafi rabaa waagii dhaweyto maqlayseen. Lacag 5 bilyan ka badan ayay lacagtaasi gaartay 6 bilyan ku dhow. Horta imise qaadatay 6 bilyan dowladda soo qaadatay ma soo qaadan lacag 1 bilyan ka yar ayaan soo helay xogta inay dowladda lacagta principalka ay qaadatay inay dhammayd waagaas. Intaan kale oo shan jibaarka ah waxay ku fuushay waxa weeye waxa la dhaho interest iyo fee ganaax loo dul saaray maadaama lacagta la bixin waayo. Marka waxaan arrintaas waagay socotay kala sheekaystay nin ka mid ah dhaqaalayahanada ka mid ah Soomaaliya oo dhaqaalaha bartay oo waxaan ku yiri arrintan dowladda IMF iyo lacagaheeda World Bank ka wada hadlayeen marka wuxuu igu yiri lacagtaas waa loo baahan yahay in dowladdu qaadatay infrastructure iyo wadooyinkii bridge-yada aan ugu dhisano oo u baahanay inaan ku qaadano. Marka waxaan ku yiri waxa uu dembiga adigu bangi mortgage kama soo qaadateen waa ka baqaysaa xaaraan inay tahay marka adduun wadankii dhan oo intaas oo milyan waxa xaaraan u gelinaysaa oo waxa dheeda bridge ku dhisanayna marka wuxuu leeyahay ma haddii arrin mujtamac guud lagu qaadanayo lagu qabanayo lacagta macnaha waa la soo qaadan karaa soo doonta saas u ahayd laakiin diin kuma dhisnayn waxay ahayd arrin fikradiisa ku dhisan bay ahayd laakiin waxaan ognahay wadamadii already lacagta qaatay oo kulligood oo wada qaylanayaan Ethiopia, Kenya, wadamada Afrika oo dhan wax horumar ay gaareen weyn oo la oran karo ma jiraan wax horumar inta ay gaareen waa intii dadku qabsadeen. Ninkan waxaan ku yiri waagaas 30 sano ka badan ay dowladda Soomaaliya dowlad la'aan wadanka ka jirtay dadkeenu dadka ugu fiican ay ku jiraan alxamdulillah. Marka haddaba intaa soo badbaadnay uma baahnin haddana inaan lacag kala qaadano oo nimankan gumeysiga oo lacagta dambiga ku dhisan la qaato. Maadaama ka hadlayn Afrikada kale iyo isbarbardhig waxaan sameeyay waxaan soo baaray qiimaha shaaha horta tusaale u soo qaatay shaaha waa wax common ah oo dadka dhan wada isticmaalaan wada cabaan. Qiimaha shaaha Muqdisho oo kaleeto 15 senti ayuu ka marayaa markaan soo baaray Hargeysa oo kaleeto wuu isku dhudhooway 15 senti ilaa 25 senti ugu badnaan. Anigu waxaan ka hadlayaa dadka low class-ka ama kama hadlayo meelaha qaaliga dadka caadiga shacabka caadiga baan ka hadlayaa masaakiinta shaaha biibitooyinka lagu cabo 15 senti ilaa 25 senti ugu badnaan buu ku joogaa Hargeysa iyo Muqdisho. Waxaan kaloo soo baaray Hargeysa waxaan ka wadaa Addis Ababa iyo Nairobina halkan u jeeda Nairobi kaleeto waa 50 senti koobka shaaha Addis Ababana waa 35 senti. Marka maciishada kuma lihi kulligood shaahu way ku wada dhisan laakiin maciishada shaahu waa tusaale ama indicator wax laga fahmi karo. Halkan uga jeedaan Soomaaliya way ka raqiisan tahay labada wadan oo dariskana la hadda waaweyn. Djibouti waxaan aaminsanahay inay ka sii qaalaysan tahay saan aaminsanahay. Tan waxay tusaale kugu tahay sida nolol loo yahay wadamadan ama wadamada Afrika nolol loo yahay ay ku tusinaysaa tusaale ay ku tahay inkastoo u baahannahay data badan iyo macluumaad badan u baahannahay si arrinta lagu qeexo laakiin waxaan aaminsanahay haddii 100,000 oo qof si randomly looga soo qabto Soomaaliya oo gobolada dhan iyo magaalooyinka dhan laga soo ururiyo si randomly looga soo qaado iyo any Africa oo wadan kale oo Afrika Kenya ha noqoto ama Ethiopia ha noqoto ama Nigeria ha noqoto hadda isu barbardhigno ani waxaan aaminsanahay in Soomaaliya listing meel fiican oo kore ka gali lahayd nolosha inay nolosha ka nolol fiican nahay wadamadaas kale oo dhan. Marka anagoo nolosheena dowlad la'aan kusoo jirnay oo lacag kale wadan kale isticmaalayna ayaan ka nolol fiican nahay saad halkan uga jeedaan wadamo badan saan anigu aaminsanahay. Marka dhinacaas waa tii nolosha haddana haddaan dib ugu celiyo waagii dahabka la isticmaali jiray adduunka isticmaali jiray oo lacagta oo dhan ay dahab ku dhisnayd ayaan tusaale yar halkan kusoo qaadanaya dagaalka koowaad ka hor 1910kii markii maraysay halka pound waxaa ku jiri jirtay ama wuxuu ka koobnaa hadda poundka sida birta poundka halka pound oo hadda shaaha kuma helaysid shaaha waa ka qaalisan yahay hadda wadanka UK waxaa ku jiray lacag macnaha dahab 8 gram ku dhow ayaa ku jirtay oo dahab ahayd 8 gram maanta qiimaha maraysa waxa weeye $600 marka macnaheedu waxa weeye halkii pound wuxuu u dhigmay $600 oo maanta dollarka intii maraysa ayay u dhigantay maalintaas
Eh, 60kiina waxay u dhigantay 0.08 ounce waxa la dhaho oo u dhiganta $209 qiimaha maanta. Marka haddaad hal pound haysan jirtay waagaas urursan lahayd, tusaale ahaan, hadda awowgay oo kale hadduu waagaas pound haddii UK joogi lahaa lacagta urursan lahaa oo 5 pound mushaharkiis ahaan lahayd oo 1 pound saving ka dhigi lahaa oo lacagtaas iska joogi lahayd, maantii lacag badan oon guri iyo baabuur ku gadan lahayn ayay ubadkiisa uga tegi lahaa ama u noqon lahayd lacag fiican bay u noqon lahayd. Waagaas hadda markii 60kii doorashada lasoo qaadanayay 20 shilin ayaa 1 pound ahayd. Marka 1 shilin waagaas wuxuu u dhigmay qiimaha maanta wuxuu u dhigmay haddii waagaas inkastoo shilin jirin, laakiin haddii pound aan ku cabirno $30 ayay 1 shilin noqon lahaa. 60kiina waxay noqon lahayd $10.45 qiimaha maanta doolarka u marayo. Marka halkan waxaan ka arkaysan tusaale ah lacagtu markay adag tahay faa'iidaday leedahay. Hadda waayadan 60kii iyo 50kii dadka faamilka noolaa hadda UK iyo Maraykan ku noolaa waxay awoodeen aabahoo kale ayaa shaqo aadi jiray, faamil dhowr ciyaal haysta weliba, hooyadoo kalena guriga joogi jirtay, lacagtii safe gareeyaan, lacagta soo shaqeeyaan, dhowr sano markay safe gareystaan lacagtaas waxay awoodeen inay guri iibsadaan oo baabuur iibsadaan oo sanad walba dalxiiska aadaan. Maantana labada qof oo shaqeynaysa xataa ma awoodaan inay mortgage wax la yiraahdo soo qaataan oo 30 sano soconaya oo stress iyo dhibaato iyo walwal ku abuura. Sababtaas ayaa keentay hore u sheegayba in faamilkii hooyadii aabihii shaqay aadaan, ciyaalkii waqti looma hayo, ciyaal xilli la dhalaa xataa waqti looma hayo. Marka si halkan uga jeedaan lacagtu si toos ah iyo si aan toosba ahaynba labadaba noloshaada ayay saameyn ku leedahay oo wax aad iyo aad u muhiim u ah oo la rabo in aad looga fikiro. Marka aniga gunaanadkaygu waxa weeye kusoo gabagabeynayaa hadal hayn ama nin hadal uu yiri oo asagana dhaqaaliyahan waag badan qoray ah, Hayek baa la dhihi jiray oo 90yadii buu dhintay. Wuxuu yiri ilaa la helo dowladda lacagta gacanteeda laga wareejiyo oo si fududna looguma wareejin karo dowladda sidaad halkan u akhrin kartaa. Ilaa dowladda waa power bay leedahay, laakiin sida looga wareejin karo wuxuu leeyahay waxa weeye in la helo qaab kale oo dowladdu aysan waxba ka qaban karin oo aysan istaajin karin in qaabkaas lacagta looga wareejiyo maahane. Wuxuu leeyahay macnaha lama gaarayo dhibaatadan lagama baxayo. Waana ku raacsanahay haddana ifafaalaheeda lacagtan uu ka sheekeynay way jirtaa wayna muuqataa. Marka ciladahan ay ka mid tahay dagaalada, ribada, inflationka, sicir bararka iyo burburka iyo dilka, waxaas dhan waxaa keenay lacagtan fiat ku dhisan oo aan hadda kasoo sheekeeyay. Marka waxaan u baahanahay lacag xalaal ah oo adag oo cadaalad ah. Marka uma baahna Soomaaliya iyo Puntland iyo meel kaleba in hadda dhibkaas uu duba naga maqan yahay in hadda lugta la gato oo dhib la doonto in lama muuqato in sidaa lagu daayo oo faraha looga qaado. Xataa bangiga dhexe in la aasaasay aniga waa kasoo horjeedaa maadaama bangigeena burburay bartiisaa naga jooga. Haddii guri uu kaa burburo oo foundationkiisa xumaa uu ku burburay ma haddana foundation xun miyaa dhisaysa? Waa maya. Waa inaad ka fikirtid guriga foundationkiisa si fiican u dhistid maadaama hadda dowladdii la aasaasiyo oo waddankeenu dowladda hadda aasaasay tahay in foundation adag oo xalaal ah oo lacag xalaal fiican oo fiican ku dhisan in la sameeyo. Taas ayaa muhiim ah. Marka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Waxaan kaloo idinka codsanayaa barnaamijkan aan soo diyaariyay aan ka hadlayay lacag ku saabsan haddii aad fikradeyda mid ka duwan ama igu raacsan tahay ama khalad aan sheegay meesha ku aragtid ii soo qor, comment iigu soo qor ama emailkayga hoos ku soo qor. Insha Allah waxaan isku dayayaa inaan wixii aan sixi karo khalad aan saxo. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.